xuska sanad guuradii soddonaad ee ka soo wareegtay markii ay Somaliland madax bannaanideeda kala soo noqotay goboladii koonfureed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Munaasabadan ballaadhan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland, maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama, salaadiin, aqoon-yahan, haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, waxaana uu ku dheeraaday 30 sano kadib horumarka ballaadhan ee Somaliland ay gaadhay. waxaana uu yidhi haddaan nabadgelyo jiro wax alla wax naga socdaa ma jireen. nabadgelyadana waxa sabab u ahaa go'aankii adkaa ee Somaliland ay qaadatay inay xornimadeeda la soo noqoto, waayo mar walba dhiiqoon ku dhex jiri mayso. beeri hore iyadoo nadiif ay tagtay koonfur dawaad ogeydeen wixii dhacay dirqiya halhaleel. waxaan u maleynayaa nin baa isagoo bilaa kabaa ku yimi Boorama gudoomiyaha gobolka malaha u cid baan u maleynayaa dad kale oo badan oo ka dambeeyo caga cadaan ku yimid way jireen. hadda dhibtaas oo dhan waxa halkaagii kugu soo celiyay waa carrada. sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal, qaar ka tirsan ciidamada qalabka sida oo goobjoog ka ahaa munaasabadda, aqoon-yahan iyo xubnihii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi. waxaan bogaadinayaa shacbiga reer Somaliland, waxaan bogaadinayaa dhammaan xukuumadda iyo hoggaanka siyaasadeed maxaafad iyo mucaaradba ee Somaliland. waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo. waa maalinta loo midaysan yahay wixii la kala jidanay hal la kala jita siyaasadde, laakiin de waa maalintii la hadhsanayay bay maanta ayaynu joognaa. in ilaahayna u gaarsiiyo nabad qab waxaynu halkaa ku gaadhnay waa nabadgelyada. haddii aanay nabadgelyo jirin horumar lama gaadho. waxyaabaha ay sababto nabadgelyadu waxa ugu horeeya waa horumarka. haddii aanay nabadgelyo jirin salaad lama tukadeen. haddii aanay nabadgelyo jirin gaadhi lama raaceen. haddii aanay nabadgelyo jirin guri lama dhiseen. sidaa darteed waa wax ilaahay loogu mahadnaqo 30 sano ee aynu soo jirnay. anigu waxaan ahaa Somaliland waa muqaddis, way jirtay oo way tagsiday tallaabsatay. ilaahayna waxaan uga baryayaa inta ay ka badan inay sii tallaabsato ay sii jirto cimri dheer iyo caafimaad. ilaahay sanadkiisa iyo bisheedana khayr ay nagu gaarsiiyo. walaaleyna muslimiinta dagaalada iyo colaadaha iyo dhibaataduna ku socdaan, ilaahay ka qabto muslimiintu ha xoogaysato, gaalada Allah ha jabiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro, waxaana hadalka uga dambeeyay wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdilaahi, waxaana hadaladoodii kamid ahaa sunnaha noolaha astaasada haddii ilaahay doonayo kun fa yakun boolan la waxa uu dhameystiri kari lahaa si laakiin waa wado loogu tala galay inaynu marro oo inuu inagu dadaalkeeno kolba intay naga dhiman ku keenno. waxaan idinku amaanaya gobolka Awdal marka la yiraahdo Somaliland waa lagu kala xaq leeyahay. nabadeeda iyo unkankeeda iyo isu keenideedaba waxa iskala gobolka Awdal. ku dhawaaqideeda burca iskala kuma haysano. waa lagu dhawaaqo burca laga dhawaaqay si laakiin cid la yabtay ee isu keentay ee kabkabtay ee halkan ku shirisay ee kolba nabadeeda u gurmanaysay laguma haysto. Awdal bay ahayd. waxa la inooga baahan yahay maanta markaa waa ruuxii aynu reer Awdal ay dhoobdhoobeenaysan samaysteen maantana inay iyagu qacanta ugu badan ilaalinteeda lahaadaan. runtii waynu ku amaananay, waa inoo sharaf. laakiin maxaa la inooga baahan yahay daynanu halkaa kaga hadhna maahe ilaa dhammaystirkeeda inaynu wadno, ilaa intay aqoonsi ka helayso inaynu wadno hawlgalkeeda. waan filayaa intay naga dhimanna insha Allah inaynu gaari doono. Awdal waa gobolka aqoonteena laakiin aad inaga inooma anfacdo, laakiin Somaliland ay anfacdaa. waxaan saa u leeyahay aqoontu way naga soo baxdaa inaga, laakiin feedback waxay naga soo noqdaa waxaad moodaa in la inaga badsado. insha Allah taasuna waxay ku xiran tahay inaga dadaalkeena.
innagaa ilaahay xooggeena inu tusi waayey oo hawl badanna soo qabtay inta qarankan uu jiro ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan halkan ku gabagabeynayaa uun Somaliland ilaahay guusha ay hayso ha u xoojiyo qof walba oo qayb ka qaatayna miisaanka xasanaadka ugu daro intii dhimatana ha u naxariisto dhammaantiin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سكريا عبد الشيخ فارح سكريا سحاني تلفزيون كمدح بنان إيريا تيفي مقالة بورما